Ma ogtahay in ay jireen dad iimaankooda darteed dab lagu tuuray balse aan marnaba ka laaban diintooda? Qisadan cajiibka ah waxaa lagu sheegay Qur'aanka Kariimka, gaar ahaan Suuratul Buruuj. waa qisada loo yaqaan asxaabul ukhduud, dadkii godka. Waagii hore waxaa jiray boqor dulmi badan. boqorkaas wuxuu doonayay in dadku isaga uun caabudaan, islamarkaana ka laabtaan rumaynta Ilaahay. laakiin waxaa jiray wiil yar oo Ilaahay rumeeyey. wiilkaasi wuxuu bartay xaqa, wuxuuna noqday sabab ay dad badan ku hanuunaan. Markii boqorku arkay in dadku Ilaahay rumaynayaan, wuu cadhooday. wuxuu amray in dhulka godad waaweyn laga qodo. godadkaas dab baa lagu shiday. dadka Allaah rumeeyey waxaa la hor keenay dabkaas. waxaa lagu yidhi, haddii aad diintiina ka noqotaan, waad badbaadaysaan. haddii kale dabka ayaad ku dhimanaysaan. laakiin yaabkeedu wuxuu ahaa, ragga, dumarka, xataa hooyooyin carruur wata, dhammaantood waxay doorteen iimaan, halkii ay ka dooran lahaayeen badbaado ku meel gaar ah. mid ka mid ah haweenka ayaa la sheegay in ay ka labalabaysay marka ay aragtay dabka hortiyeedayaal. balse ilmaheedii yaraa ayaa ku dhiirigeliyey in ay samirto oo xaqa ku sugnaato. waxay ku dul sabreen cadaabkii, iyagoo og in abaalmarintoodu ay ka weyn tahay dabka hortooda yaala. qisadani waxayna baraysaa in iimaanku aanu ahayn hadal keliya, balse uu yahay go'aan adag marka imtixaanku yimaado. waxayna xusuusinaysaa in dulmigu aanu weligii sii jiri doonin, iyo in kuwa xaqa ku sugan ay leeyihiin abaalmarin weyn. adiguna haddii aad la kulanto caqabado ama cadaadis, xasuuso dadkii dabka lagu tuuray, iimaankooduna uusan marnaba guban.